hal arrin waa ka go'anta madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa la hubaa geed dheer iyo geed gaaban waa u koray waliba waxa ku jirta danta Soomaalida danta dadka Soomaaliya ee koonfurta iyo bartamaha ku nool waxa ku jirta muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhan sababtoo ah waa baahi ayaga ka maqan ama duruuf ayaga haysata oo deegaanada kale ee Soomaaliya aan haysan haddii dhibaatadaas laga baxo oo go'aanka dawladda la taageero oo dhaqan galo Soomaaliya waxa ka dhamaan doono musuqmaasuqa iyo hogaamiye kale oo been u sheegay bulshada oo wax u qaban waxaan kula wadaagayaa qodobkaas ka go'an madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda ku guda jiro iyo sida ay suurtagalka ku tahay iyo go'aankii ugu dambeeyay oo guddiga doorashooyinka ay soo saareen haddaad nagu cusubtaan ugu soo biir muuqaalkaana si shargaray aad maasanta madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud si kasta oo ay duruufo u jiraan doodana u taagan yihiin hal qodob ayaa waxaan xog ku helnay inay ka go'an tahay oo rabo inuu dhaqan geliyo waa uu bilaabay meelaha qaar oo magaalada Muqdisho degmooyinka ahna waa ka aragteen qodobkaas waxa weeye in la qabto doorashooyinka dadweynaha ee gobolka Banaadir iyo degmooyinka kale ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha macnaha golayaasha degmooyinka golaha deegaanka in dadka ku nool degmo kasta sida kuwa Puntland iyo kuwa Jubbaland ay u soo doortaan golayaashooda in ayagana u soo doortaan wixii kalaba waqtiga doonta qaadato dooda adag ku goorbuunaa laakiin guddigan doorashada shaqooyinka ay qabanayaan waliba tan hadda socoto ee doorashada golaha deegaanka ee degmooyinka ah waa tan ugu muhiimsan waana mid ay ka go'antaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudahan doorashooyinka dalka in sida noqdaan waxaana ku jirta danta bulshada hadda qoraal ay soo saareen maalintii shalahayd guddiga oo ay ku leeyihiin muddo kordhinaan samayn kadib markii la arkay xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo aad u daneynaya inay doorashooyinka dalka Soomaaliya oo markii hore lacago iyo corruption iyo baaba ahaan jiray inay saameyn ku yeeshaan qoraalkii ugu dambeeyay oo shal soo baxay waxa wargelin waxa lagu yiri guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha koow isaga oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo ee dastuuriga ah isla markaana tixgelin gaar ah siinaya howlaha baaxadda iyo mudnaanta u leh gaar ahaan diiwaangelinta ururada siyaasadda laba markuu arkay xooliga ay ku socoto diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo muhiimadda diiwaangelinta ururada siyaasaddu ay u leedahay shaqada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ururadaas oo hadda tiradoodu ay tahay 21 urur siyaasadeed oo dhameystay hanaanka diiwaangelinta saddex markuu tixgeliyay codsi uga yimid ururo ku jira hanaanka dhameystirka shuruudaha iyo dukumiintiyada ee xafiiska diiwaan hayaha guddiga ayaa waxay sababeen go'aano kale oo dheeraad in la gaaro sidaas darteed ama shir degdeg ah oo yeesheen xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha waxay go'aamiyeen in muddo 14 maalmood ah lagu kordhiyo muddada diiwaangelinta ururada siyaasadda si loo dhameystiro hanaanka diiwaangelinta ururada muddadaas oo ka bilaabanaysa maalinta Khamiista ah oo ku beegan 1 bisha shanaad ee sanadka 2025 kuna eg maalinta Arbacada ah ee 14 bisha shanaad ee sanadka 2025 maanta ka bilaabanay 14 bishan ayayna ku egtay muddadaas 14 maalmood loogu daray ujeedadu waxa weeye ururo badan inay jiraan oo ay rabaan in isdiiwaan geliyaan laakiin shuruudihii inay wax uga dhiman yihiin marka sidaas darteed dadka Soomaaliyeed dan waxa ugu jirto inay doortaan gudoomiyahooda degmada iyo golihii deegaanka degmada ku matali lahaa si uga baxaan dhibaatooyinka ay muddada 35 sano ay ku jiraan iyo ka sii horaa intii dawladda militariga jirtay waa waxa ay tahay dadka Soomaalidu inay siyaasiyiintu inta ka diidaan inay taageeraan qofka aad rabto adiga dooro xildhibaankii qabiil ahayna u soo coday erga ayna u soo coday xildhibaankii lacag soo qaatay shaqo u geen waay gudoomiyaha degmada lama arko waxaasoo dhan waa dhamaanaya maalinta adiga inta aad feel gishid codkaaga aad saarato aad tiraadid exna waa rabaa waa nama rabin ama qof hebel aan u coday qof hebel ma coday waxa way guula gaarisa aad ma san tahay aragtayna qaybta safaalada muuqaalkan soo shargaray